السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan asxaabta qiimaha badan ee ku xiran journalka aamin technology isku soo noqdo wanaagsan insha allahu tacaala maanta waxaynu ku daraasay doonaa cashirkeena hadduu alla idmo CSS selectors. cashirkan waa cashirkii toddobaad ayaynu ku baranaynay HTML iyo CSS. fadlan cashirkan cashiradii ka hor haddaa soo daawan dib u soo daawo. haddaan ugu cusub tahay journalka subscribe noo saar. insha allah aynu isu gudagalnaa cashirkeena. maanta waxaynu qaadan doonaa CSS selectors. CSS selectoradu waa maxay? CSS selector waxay suurto gelinayaan web page-kayga ama website-kayga meel cayiman specific location inaan wax ka bedeli karo. yacni header-ka ama footer-ka ama qayb ka mid ah website-kayga inaan farti ka bedeli karo, color ka bedeli karo, ama maamuli karo. si guud waxay suurto gelinayaan website-kayga qayb ka mid ah inaan maamuli karo. CSS selectorada kuwa ugu caansan insha allah waxay noqonayaan oo isla daraasay doono. number 1 HTML element selector. HTML element selector hore ayaan usoo daraasaynay, hore ayaan usoo qaadanay. HTML element selector waxaan soo dhahnay mugii cashirka ka horeeyay bdas waxaa loo yaqaanaa selector. HTML element selector waxaa la yiraahdaa baadiga, tusaale ahaan header-ka, footer-ka, kuwaas ayaa la dhahaa HTML selector. taas waqti badan iskaga lumi doono, hore ayaan usoo daraasaynay. insha allah maanta waxaynu xooga saari doonaa class selector iyo id selector. class selector iyo id selector waa maxay? koodka ayaan ku arki doonaa insha allah. aan soo kacsano Visual Studio koodkayna. comment ayaan saaraynaa insha allah. waxaan dhahaynaa class selector. si aynu comment u saarno ugu horeyn highlight saar. highlight saar markaad saarto control plus backward slash dhah, calaamadaas ayaa la dhahaa backward slash, control la qabo. kadib waxaynu kusoo diri doonaa paragraph. paragraph marka kusoo darno waxaynu qori doonaa qoraal. qoraalkayna u baahannahay inaan meel qaas sida u jeedidba qoraalkan waa paragraph, kanna waa paragraph. paragraphyada ka buuxo website-ka way badan yihiin, sidee u maamulaa halahan oo keliya. waxay suurto gelinaya inaan maamulo qayb ka mid ah website-ka class selector. sidoo kaleeto waxaynu ku maamuli karnaa id selector. aynu isla baraad karayna class selector. ugu horeyn waxaad dhahaysaa class, kadib meeshaas ayaa waxaa gelinaysaa class name, magacaad u baxsan lahayd. waxaynu dhahaynaa class 1 ama paragraph 1 b1. qoraalka u baahanta ay u bixinaysaa, waa save garaynaysaa. sidee marka ugu bedelaynaa qoraalkan paragraphkan kuwan kaleeto mid ka duwan sidee u dhigaynaa? farta ugu bedelaynaa, colorka ugu bedelaynaa, paragraph ugu bedelaynaa. ugu horeyn waxaad tegaysaa CSS-ka, magacii u soo bixiday class markaad joogtid waxaa laga rabaa dot waa qasab, waxaa lagu aqoonsadaa waxaynu sameynayaa class. dot ayaan dhahaynaa, kadib magac usoo bixin ayaan dhahaynaa paragraph 1. waxaynu furaynaa qoyskaas ayaynu furaynaa, kadib waxaynu ka qabanaynaa farta background hadda ka bedelaynaa. background ayaa dhahaysaa background color, kadib waxaa nooga dhahaynaa yellow. farta yellow kusoo biximaya waxaynu dhahaynaa red. waan save garaynaynaa, kadib soo kacso Chrome-ka. waa kana qoraalkii ugu dambeeyay soo gelinay. keligiis ayaan maamulnaa farta ka bedelna. waxaa noo suurto geliyay class selector. sidoo kaleeto waxaynu isla daraasay doonaa iyadana hadduu alla idmo id selector. HTML-ka ayaanu tegaynaa. iyadana waxaynu soo geli doonaa qoraal. waxa allaala waxaad rabtay ay soo gelinaysaa, laakiin annaga hadda waxaynu soo gelinaynaa qoraal. qoraalkan waxaa la mid dhigaynaa qoraalkii hadda. yacni waxaynu ku tusayaa keliya farqiga u dhexeeya id iyo selector. control v ayaanu ku dhahaynaa. taggan dhexdiisa ayaa waxaad ku qoraysaa id markaad qortid enter ayaa dhahaysaa.
kadib equal double quotation asaga ku gelin doono kadib ID-ga magaca harta u bixinaysaa waxaan dhahaynaa anaga ID1 markaad tirado waa save garaynaysaa waxaad tagaysaa CSS-ka ID-ga iyo class-ka waxa u dhaqay farqi u dhaxeeya waxa waa in ID-ga wuxuu ka bilaabanayaa hashtag halka uu ka bilaabanayay class-ka dot ID-ga waxaynu ka bilaabaynaa dhahnay hashtag class-kan wuxuu ka bilaabanayaa dot farqi u dhaxeeya waa kaas waxaynu dhahaynaa marka hadda hashtag ayaan dhahaynaa kadib waxaynu dooranaynaa magaca u soo bixina waa kana ID1 double clicking hadii waa soo copy garay kartaa sidoo kale ta gacanta waad ku qori kartaa anaga hadda waa soo copy garaysanaynaa kadib qoys ayaan furaynaa qoyska markaa furtid hadda waxaynu sameynay ID selector waxaa naga rabaa declaration properties kadib waxaanu dhiman declaration properties oo sameeyno waxaanu dhahaynaa hadda waxaynu ka bedelaynaa taas colorka ayaanu ka bedelaynaa ma way isdhibayno colorka waxaanu ka dhigaynaa blue waxaynu rabnaa inuu noo soo baxo color blue ah hadda wili refresh ma dhihin waxba ismu dilin laakiin meeshaas ugu hooseyso ayuu soo dhigmi doonaa soo color blue ah refresh ayaynu isla dhahaynaa isla socono waa kaasa colorkiisu wuxuu noqoyay blue background-ka waa ka bedelaynaa asigana waxaan dhahaynaa background color waa dhihi kartaa background waa dhihi kartaa background-kiisa waxaynu ka dhigaynaa green ama black kadib waynu save garaynaynaa control S ayaanu dhahaynaa Chrome-ka ayaanu tagaynaa refresh ayaanu dhahaynaa wakasa background-kiisa wuxuu noqoyay black ayuu noqoyay fartiisuna waa blue sida ujeediin buu aragtaan farqi u dhaxeeya class selector ID selector HTML selector-ka waa footer body iyo header kuwaas ka mid ah soo dhaanay class selector si uu sameeyo waxa shardi ah marka koodka qoraysa selector-ka inaad ka hormarisid magaca dot inaad ka hormarisid ayaan soo sheegnay halka ID uu ka bilaabanayo asna ka hormarinaysa hashtag insha Allah cashirkan maanta inuu ogyahay fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar channelka cashiradii ka hore soo daawanin dib u soo daawa cashirada waad ku maasantahay daawashada muuqaalkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.